agaasimi hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloshe ayaa dhaliilay qaabkii ay u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe taasoo lagaga guulaystay kursigii hore ee baarlamaanka waxaana uu ku eedeeyey in dowladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas islamarkaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga kaga guulaystay nuur iidow beyle wariyeene haaruun macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka ee muqdisho waxaana uu weydiiyey sida u arko doorashadaasi. bismillahi raxmaani raxiim. haarun waa mahadsantahay, waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad waraysan ka qaadaysad. runtii waa run 8 bishan January waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka hor baneeyay baarlamaanka. dabcan dabeeciyana anigu hadda siyaasadda ayaan ka shaqeeyaa. haddii meeshii xilkii dawladda ay magacooda laga qaaday meesha kale ii banaanday siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursadaas waa ii muuqatay. bacdama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo hawlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsana inay tahay baarlamaanka awlan aan kamid ahaa. saas darteed ayaan ugu tartamay. waa gartay. ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey, xildhibaan kalaa kaa badiyey. doorashadu se u dhacday ma ku qanacday? horta kuma faraxsani, laakiin inaan aqbalo dabcan way tahay. runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan loosgarayo ama aan waayo oo ay 3 arrimood asaas ay u tahay. mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgaleen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen. mar hore ayay ahaaday inay qabtaan doorashada, way cagajiideen. sidaan dareensanahana faragelin ayaa dawladda ku haysay. haddana si toosa dawladda ayaa faragelin usoo samaysay oo gacan muuqata oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursiga qaaday. tan kalena waxay tahay dee dadka wax dooranayo oo iska garanaysaay oo wacyi badan aan lahayn waxa la isku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dawladda meeshaas kusoo saamaysay oo dee marna dareenkooda ay wax ka bedeshay. marka runtii faragelinimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sababa inaan waayo. maxaad ku caddaynaysaa in dawladdu ay xildhibaanka kale taageeraysay? wax caddayna miyaad haysaa mise waa tuhunuun? wax tuhun la yidhaha ma jiraan. oo dadkaan waa dad ehela, waxba uma kala qarsana. waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara waad ka garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto. marka wax oo loo qaateenha waa jiraan. marka yacni dadkii ay doorashada ama delegateskii dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si keyru caadi loo korabti garayo ama xoolo keyru caadi oo wareeriye la siiyo waa garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saamayn weynu ay ugu imaanayso dhinacaas. marka waana la ogyahay qof kastaa og, ergadii og, odayaashia og, magaalada dadkii jooga mas-uuliyiinta og, dadka tartamayaasha og, qof kastaa og in faragelin toosoo dawladda ay ku jirto. waa gartay. dawladdii tan ka horreysana waxaa la lahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay. marka ilaa haatanna tuhunka kasoko wax caddayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto caddayna loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay soomaali iyo ajaanibba ay qabeen. marka su-aashaan u socda waxa weeyaan wax tuhun ma jiraan haarun. tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cidlaa ka cadaynaysa ma jirto. aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartanno oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaado ana aan tayada la imaado haddii aan ku kala badino wax problema ma jiraan. laakiin xoolihii dawladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo haddii ay hal kursi $1 million ka badan ay geliso sidaa la socotina hadee daruufaha dalka ee dhaqaalaha ama hay-adahena ammaanka haysta ama hay-adahena kale dawliga haysta ama hadda kasoo qaba madaxweynuhu safar uu ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaariic fara badan soo dhagax dhigay oo mali halkaas malyan oo lagu bixiyay kursiga doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas at least commitmentsiga dawladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd. marka hadda waxaa la yidhi waxaarunimaysan qaadin kama daba yeeraan. qof tuhun keliya ka dhaylin laha ma jiro. waxaana ergadii og, odayaashii og, lacagtii la baxshaa loogyahay, waktigii la baxshaa loogyahay, evidenceska waa loogyahay. dadkii o dhan hadda la keeni karaa og, qofkii qaataa oo kii baxshaa og, wax kasta waa loogyahay. waa gartay. laakiin cid hadda oo meel cidlaa oo ka samaynaysa case ma jirto. laakiin adiga iyo dawladda waad iswadateen, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha rag saaxiibbaa oo isla soo shaqeeyey, isku dhow baad ahaydeen. xataa xilligii ay ololaha doorashada uu ku jira madaxweynaha aad baad ugu dhoweyd. maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda? marmarka qaarkood dawladaha maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo khaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodaan ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan. malaha
dad waxaa jira ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaysan xitaa toos lug ugu lahayn mana qabayn ayagu toos lugu leeyihiin dad ayaga ka agdhowa malaha dadkan in siyaasada laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dawladda si khayr caadihi oo qarrima loo qasiro ilaahay ugu dhawaanaya jira ama aan doonayninba dadka firfircoon oo siyaasada saameynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufis iska qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kala aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galo in culays siyaasadeed iyo yani fighternimo aniga layga baqaayo waxtaas laakiin anigu hadda dulmaba kursiga xildhibaanka isbaara kamaba dhigteenba midaan dawladda ku caawiyo noqon lahaa midaan dalka ugu adeego noqon lahaa midaan dadka ugu adeego noqon lahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqonayo mucaarad waxtara oo wax toosiyaan noqon lahaa mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dawladda aan kula dagaalamo raba horta ma noqdo marka malaa waxaa la yidhi dhurwaayi ilmo isma jecla waana isnecel yihiin amana isjaqaanaan waanaba kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kabiirka u dareya malaha kabiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kasoo hesaya weerarkan si toos ugu lug lahaa kaasi wuxuu ahaa agaasimiye hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramayey waa khadka